dab aad u xoogan ayaa casir liiqi ka kacay garaash ku yaala agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Garaashka oo ku yaala afaafka hore wadada u baxda garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho una dhaxaysa kilomitir 4 iyo Hotel Afrique ayaa waxa uu ahaa mid sababay khasaaro hantiyadeed oo burbur xoogan u geystay goobo lagu iibiyo agabka gawaarida. Sidoo kalena waxa uu dabkaani saameyn ba'an u geystay xafiisyo ku yaalay goobta uu haleelay. Dad goob joogayaal ah oo warbaahinta goobta kula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay arkayeen saameynta uu geystay dabka halkaasi ka kacay, iyagoona sidoo kale sheegay in aysan jirin waxyeello nafeed oo geystay dabkaasi. Cumar gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda ganacsatada gaadiidka cusub, halkani aan joogno waa Xoosh Motors, waa macdar lagu iibiyo baabuurta. sida indhiin ay qabanayaan waxa ka kacay dabkaas waxa uu geystay khasaare aad iyo aad u fara badan. sida aad aragtaan gaadiidka meeshaan dadweynaha soo gurmaday iyo gobolka Banaadir iyo shirkadda Hormuud oo dabdimiseeda imaadeen gurmad fara badan oo ahelna Ilaahay wuxuu noo saamaxay inaan baabuurteena la baxno. hadda halkan waxa idinkaga muuqdo waa meeshii isbaarbaartiyada tukaamadii ahay, xafiisyadii, qalabyadii meeshii ay yaaleen. khasaaraha ugu badan dhinacaas uu naga soo gaaray. alxamdulillah hadda maqriba la sii gaarayaa, awoodii dabkana waa sii yaraanaysaa. Ilaahay baa ku mahadsan. marka waxa ummadda Soomaaliyeed ee dhammaan inta meeshaan joogto uga mahad celinaynaa sida gurmadka degdega oo walaalnimada leh oo gacanta leh oo hagar la'aanta ee noo siiyeen. waxa si gaar ah ugu sii mahad celinaynaa shirkadda Hormuud iyo gobolka Banaadir dabdamisyadooda sida degdega ay noo soo gaareen. welina hoori farkama qodno, dabka waa uu sii socdaa, halkaas ay howl maraysaa. aad iyo aad ay u fara badan yahay dabka. hadda idiin muuqdo waa xafiisadii, waa goobihii ganacsiga oo isbaarbaartiga. halkan waxa ay meel baabuurta lagu iibiyo, isbaarbaartiga lagu iibiyo. waa Xoosh Motors meeshaan aad dhex taagantiin. waa meel hanti aad iyo aad u fara badan ee taalay. saacadda ana arkaysaana weli dabka lama dimin, khasaarahana waa uu sii socdaa. wixii oo khasaare guudana dib aan ka soo sheegaynaa diilaayra. gurmadkii loo baahnay dadweynaha ugu badnay waa helnay. maamulka gobolka Banaadir dabdamisyadooda ayagana iyo Hormuud waa helnay. alxamdulillah in ugu filan gurmadka hadda waa helnay. dad oo dhaawacyaa waa ay jiraan. weli khasaaraha si aad iyo aad looma sii tiro koobin, laakiin khasaaraha oo dhammaystiran biidnillahi tacaala dib ayaan ka soo sheegaynaa. Dabdamiska maamulka gobolka Banaadir iyo midka shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa durba goobta gaaray, kuwaasi oo ay saacado ku qaadatay in ay damiyaan dabka maadaama uu ahaa dab xoogan, faafitaankiisuna uu ahaa mid si dhaqsi ah ku gaarayay goobo hor leh. lama oga ilaa hadda waxa sababay dabkaasi, balse waxaa jira baaritaano ay sheegeen inay sameynayaan maamulka gobolka, gaar ahaan kan degmada Waabari.